14 Febraayo sanad walba qaar ka mid ah wadamada dunida waxaa looga dabaaldegaa maalinta loogu magac daray Maalinta Jaceylka. Warbixintan ayaa waxaan ku eegi doonaa taariikhda maalinkan iyo xiriirka kala dhaxeeya dalalka dunida Muslimka ah. Sida ku cad taariikhda dunida 14 Febraayo waxaa qaar ka mid ah dalalka dunida looga dabaaldegaa Maalinta Jaceylka adduunka waxayna soo bilaabatay qarniyo hore. Sida taariikhda dunida xusto waxaana la sheegaa in ay ku bilaabatay laba qaab oo ku saleysan wax ka baxsan hanaanka sharciga islaamka. maalintan Valentine la yiraahdo taariikhiyan horta laba marxalad ayay soo martay yani marxaladda koobaad tan hadda caalamku uu ictiraafsan yahay oo la yaqaano oo wax badan wax lagu saleeyo oo ah inuu ka bilowday xilligii nin qadiis ah oo baadari ah oo la oran jiray Valentine Rome oo Roma ku noolaa ayaa ninkaas lagu magac daraa. ninkaas oo ahaa nin qadiis ah nin yani baadari ah oo Roma ku nool oo nin boqor ah imperatori oo Romani ah oo Clodius iyo magaciisa saas oo kale lagu tilmaamo oo nin jabbaar ah oo dadka dhiba ah ayaa la sheegaya ninkaas in uu qawaaniintiisa uu ka horyimid oo la dagaalamay marka iyo qadiis kalata usquf kalata oo asagana magaalo la yiraahdo Torni ku noolaa muddo asaga xogaa wax yara ka dambeeyay lana waxa la sheegayaa inuu usquf ka ahaa magaalada Torni 297 baynama Valentine Rome xilli asaga la dilay oo ciidaamka lagu sameeyay ee taqriiban yani 269 بالضبط oo taariikh qaar ay qoraan 270 yani dhalashada nabi ciise ka gadaal. dalalka muslimiinta inta badan maalintan waa laga mamnuucay in loogu dabaaldego ama dadka ay ka ganacsadaan waxyaabaha loogu dabaaldego sababtuna waxay tahay xiriirka maalintan ay ku soo bilaabatay oo ah mid diinteena Suubaan aad uga fog. dalkeena Soomaaliya waxa uu ka mid yahay dalalka dunida Muslimka ah ee aan maanta oo kale looga dabaaldegin maalintan loogu magac daray Maalinta Jaceylka. hase ahaatee waxaa jira in dhalinyarada ay ku kala aragti duwan yihiin in loo dabaaldego iyo in kale. waxaa jira dhalinyaro ka qayb gala goobo ay fanaaniintu ku qabtaan xaflado iyo la mid ah walow ay aad u yar yihiin. maalinta waa inay berita ay tahay aan xuseynaa maadaama aniga aan jacayl badan aan soo maray oo magacii uu yahay Maalinta Jaceylo oo wadanka Koonfur Afrika South Africa. wallahi niyo Cabdullah Qorshe aad iyo aad waa mahadsan tahay su'aalaha caawada ay wareysatay boqolkiiba boqol ma waan kaaga mahad celinaya magaran maalinta jaceylka niyo waxyaalo badan ba ugu talagalay laakiin waagii bariyaan ka jeclaalahay oo because maalinka jaceylka shakhsi ahaan waa ila wanaagsan laakiin dad diini ahaan ku wanaagsaneen waxaan markaas waxay la tahay inaan ma jir doono. maalinteedu waa maalin ay gaar ah aan u dabaaldego jaceylka maanta oo kalaana ma ahan waa maalin ani ii qaas ah oo igu qarsoon maanta oo kalaana waa maalin murugo leh ma ahan maalinta jaceylka adduunka loo dabaaldego waa maalin ay naxtin leedahay gabar la xoogay haddana la dhahay maalinta jaceylka adduunka. niyo maalinta jaceylka aniga horta wax xusiisa ama saameyn gaar ah ugu leedahay ma jirto haba yaraatay. waa tahay sababtuna maxay tahay? sababtoo ah jaceylkaanba waxaan qabaa wax dhalinteeda oo aan jirin. hay marka sida darteed wax oo jaceyl saameyn gaar ah ugu leeyahay ma jirto. wali jaceyl ma ku soo maraaday? aniga niyo horta waa soo guursaday caruur waan dhalay laakiin wax qiimo ee jaceyl iyo qiimo gaar ah oo si gaar ah ugu leeyahay ma garanayo. aad iyo aad aan u aaminsanahay jaceylka. waa tahay sababta marka muddo baldigisa mase waxa waaye waxa jirta xusuus gaar ah oo maalinkaas adiga ay ku leedahay sida daraadid maaragta aad u xusayso. xusuus gaar ah ay leedahay. waa tahay wax ma noo sheegi kartaa markii? aniga xusuusteeda gaarka ah ku sheegay macnaha gabaraan saaxiib la 9 sano aan jeclahay aniga xusuus waxaan ku sameyn rabaa leefis kuma arkayna laakiin waa kala fognahay macnaha ina Facebook aan kala sheekaysto. horta wali dhalinyaro horta oo in da'o weyn ma ahin laakiin haddana tood waxaan maalinta jaceylka iyo waxaan la sheegayo oo zaa'idka hore looma aqoonin waayo waxa waaye wadanka gudihiisa markaan joognay oo hore loo joogi jiray maalinta jaceylka iyo maalinta saa iyo waxaas lama sheegi jirin. qoftii active oo waxa ay muqdisho hadii lagu sameyn jiray waxaa sameyn jiray dadka ajaanibta ee wadanka joogo
waxaynu ku sameyn jireen meelo oo gaar oo ayaga gooni u maahayn meel oo xaafadaha dhexdooda iyo meelaha publicada laguma sameyn jirin teeda kale hadda waxaa la wada yimid wadamadii oo galbeedka la wada aaday qof walba waxay aragtay meelihii loogu dabaaldegayay oo arrimaha looga sheekeynayay oo lagu dhahayay sheegeen maalinta jaceylka iyo waxyaabahaas looga hadlayay marka qof kasta way baratay waa sida sheegtay Cabdullaahi iyo barnaamijkan la yiraahdo Valentine Day oo ah barnaamij ay dhaqan u tahay gaalada oo ay gaaladu aad u ixtiraamto ay jecel yihiin oo ah maalin u ciid oo gaaban oo ay dadka inta badan isugu soo baxaan isla markaana ay yiraahdaan waa maalinta jaceylka adduunka waddankeena Soomaaliya intaan joogay ogaalkayga ma jirin barnaamij aad u ballaaran oo sidaan oo kala oo ay dadku isugu soo baxaan waddankeena waa ogtahay inta badan waa muslimiin laakiin waxa jira dhalinyaro yar oo hawiraaca oo jecel waxay gaaladu sameynayaan inay maartay isugu soo baxaan oo xaflado ay dhigtaan xaafad dhexdeeda oo aan ahayn meel public oo aan ahayn oo xaflad weyn ahayn sida dhalinyaro yar oo TV-da ka fiirsadaan isugu imaadaan meesha aniga sida ogaalkayga waxaan xasuustaa dhalinyaro isku martaqaaday xaafad oo barnaamijka sameynayeen ayaa dhalinyaro kale oo xaafad kale ka timid ay meesha ku soo weerareen oo yiraahdeen waxa sameeynaysan waa munkar oo ay meeshaas ku banjareen ogaalkayga intaas waayay laakiin ma jirto xaflado waaweyn oo dad aqyaarta isugu imaadaan ama mas'uuliyiin waaweyn ay imaadaan ma jirin oo la sheegi karaa ma jiraan laakiin xaqiiqo waxa ay dhalinyarada looga wacyigeliyo barnaamijkan oo ah Valentine Days oo ah dhaqanka gaalada muslimnimadu meel ay ugu jirto iyo diinteena meel ay ka ogashahay ma jirto haddaba jaceylku ma leeyahay maalin gaar ah oo dadku ay u dabaaldegi karaan isla markaana ay soo bandhigan karaan jaceylkooda diinteena maxay ka qabtaa in dadku ay u dabaaldegaan maalinta jaceylka maalin gaar ah oo ruuxa jaceylka uu bandhigayo ma jirto xilli kasta mar walba la rabaa ruuxa aad jecleed haddii uu qof mu'min oo saaxiibtinimo idinka dhexaysa uu ahaa ama haddii xaaskaaga ay ahayd ama haddii caruurtaada ay ahaayeen ama waalidkaaga hadduu ahaaba waa jaceyl la rabo mar waliba soconayo oo mar waliba hadiyadda aad u diri karto kaararkaaga aad u dirsan karto oo xilliga aadan la sugaynin oo sanadkii 14 Febraayo aadan la sugaynin xilli waliba aad dirsan kartaa jimcooyinka aad dirsan kartaa bishii mar aad diri kartaa xilli kale aad ku aadin kartaa waxaan ogaataa ummad waliba likullin jacalna minkum shircatan wa minhaja ummad waliba ilaahay sharci iyo jilay mara iyuu siiyey annagana ciidaha marka haddii aad jaceylkaaga rabto inaad bandhigato oo aad fursad iyo munaasabad la doonayso ciidul fidriga iyo ciidul adxaha la sug oo xilliga u dir insha Allah taala ama xilliyada kale oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu abuuray laakiin xilliga ha ku aadin maxaa yeelay waxay noqonaysaa caawin aad ku caawinayso dadka waxaan shareecadana ku banaaneen taasina ma banaana